salaamullaahi calaykum asxaabta kusoo dhawaada inkastoo baryahani aan kala maqnayn oon kala mashquulnay laakiin hadda welcome back guys, welcome back. Maanta barnaamijku muxuu yahay talow? Maanta barnaamijku waxa weeyaan waa sidee xaaladda iskuulada ama waxbarashada Canada oo dib loo furay. Waa sidee xaaladda waxbarashada Canada oo dib loo furay iyo qaabkee loo aadayaa iyo waa maxay instruction la raacayo iyo sidee yacni waxbarashada ku soconaysaa, social distancing loo joogteynayaa. Intaas ayaan rabaa maanta inaan mawduuciga uga hadlo. Daqiiqado kadib oon hadli doonaa. Isku soo noqosho wanaagsan asxaabay, qadarkii nasashada kadib. Markay sidaan ku balansanaynba waa inaan wixii update ka dabageeyaa. Maantan waxaa update ahaa sida yacni waxbarashada loogu laabanayo iyo instructionada la raacayo iyo qaabka iskuulka ku tagayso. Inkastoo hadda wax waliba waxay noqdeen appointment la-aan ma tegi kartid, meel walba appointment la-aan ma tegi kartid. Haddaa u baahda caafimaad isbitaalka waa inaad appointment qabsataa, wax walbana appointment qabsataa. So hadda marka iskuulkii waxaa la sameeyey schedule taasoo hadda la xadiday inuu cudurkana sii faafo oo la diidan yahay. Marka hadda instructionka oo number 1 ka ah horta social distancing hore in la sii joogteeyo. Talabaad waxaa kaloo ka mid ah in aad isbuucii hal maalin imaato iskuulka, isbuucii hal maalin inaad imaato. Waxaa kaloo ka mid ah xataa inta marka iskuulka soo galan camal oo kale waxaa jiro dad u xil saaran yacni qofka soo galayo inay su-aalo ay weydiiyaan. Sidoo kale xitaa waxaa la ogaanayaa temperature-kaaga ayadana iskanka ayadana lagu marinaya, temperature-kaaga la ogaanayaa. Marka su-aalahan waa lagu weydiinayaa. Su-aalahaas ma badno, I think inay 6 yihiin maba 7 xataa ma gaarayaan. Waan wax afka lagaa weydiinayo. Marka tusaale ahaan afka waxaa lagaa weydiinayaa oo aniga waxyaabihii la weydiiyey ka mid ahaa yacni coronavirus ma kugu dhacay weligaa? Hadduu kugu dhacay waxaa leedahay of course ugu dhacay, hadduu kugu dhacay. Hadduu kugu dhicin waxaa leedahay iguma dhicin. Waxaa lagu leeyahay qof coronavirus ku dhacay ma kula nool yahay? The second question lagu weydiinayo oo lagu leeyahay qof coronavirus ku dhacay ma la nooshahay ma kula nool yahay? Waa may baa leedahay. Waxaa kaloo lagu weydiinaa qandha iyo yacni waxaas qufac iyo waxaas ma isku aragtaa lagu leeyahay. Adiga calaamadihii of coronaviruska lagu weydiinayaa. Marka haddii waxaas dhan aad qabto xaaladda waan qabaa, si ummadda kale aadan u balaayeynin oo aad yacni u xadido ama loo xadido cudurkan inuu qof kale faafin, qof kale uusan ku dhicin. Marka intaas kadib, intaas waa intii hordhac ahayd. Kadib waxaad imaanaysaa galaaskii markaad imaato kuraasta waa la kala fogeeyey, sidii hore ma ahan. 6 feet ayaa u dhexeysa kuraas walbo. Arday fara badanna ma imaanayso. Dadka la ogol yahay waa 6 up to 8 baa la ogol yahay galaaska inay ku jiraan, ka badan lama ogolo. Hadduu galaasku fara badan yahay waa la kala qaybinayaa.
waxaa loo kala qaybinayaa A iyo B. hadduu sii bato C xataa loo sii kala qaybinayaa si yacni waxaana loo barto yacni caafimaadkaagana aad uga taxadirto so marka waxyaabahaas oo dhan waa wax anaga noo muhiim ah, laakiin haddaan Soomaali nahay wax anaga ma qorno. hadda waxaa israacnay waxaan yacni aan ku kulanay iskuulka gar Soomaali ah asna marka adiga instructionkii wuu raacay galaaskii markuu tegay yaa waxaa dhacday kilib yar oo yacni isfani laakiin Soomaalida waa jeclaa moogtahay marka bahalkan face mask la dhahayo yaa wuxuu ku yahay ninkani dhib uu ku yahay marka ma qabi karo qof kaa gadaaleeyo laga yaaba inuu ajnabi yahay, kan kaa horeeyo sidoo kale, kan kaa dambeeyo sidoo kale, kan garabkaaga fadhiyo sidoo kale. erka Soomaaliya waa taqaanaa marka facekii uu iska bixiyey macaan wax bashar wuxuu leeyahay please yacni face mask afka saar uu leeyahay, afkaaga daboolo. haddana daboolka muxume intaan bas u daboola, intaan bas lama rabo marka waa inaa intaan dabooshaa ilaa sankaaga daboola maqli jire. hadda marka sheekada waxaa waaye cudurkani wax kale laguma xakameyn karo, waa inaa afkaaga daboolataa. yarkii hal saac camal yaa waxaa la dhahayay afkaaga daboolo. so marka waxaan ka wada waxay tahay marka annaga haddaa Soomaali nahay yacni waan u fududnahay qofkan yacni cudurka inaan faafin waa u fududnahay. yarka hadda Soomaaliga waxaa laga yaabaa inuu yarka la Soomaali salaamo ama wax la cabo saaida xataa wax kaga dir. hataa iskuulka waxaa la dhahay no drink no food coffee yacni cafeteria wax dhan waa xireen, no sharing something waxa islama qaybsanayo, waxa la isku dhigayo ma jirto, contact hand by hand ma jirto. haddii wax kaa khaldan yihiin macalinka wuxuu ku leeyahay text message igula hadal, ma garad. qalinkaaga qof kale ma amaahan kartid, yacni ma siin kartid. hadduu wax ku qoranaa iyo hadduu wax ku qoran wax ma siin kartid. haddii lagu qabtan waxaa tahay faafinayo, ma garad. marka intaas update ahayd maanta. marka Soomaalida waxaan ugu digayaa please walaalayaalow face mask afka ku xirta, dhib ha idinku ahaatee. waa idin salaamayaa asxaabtayda, beryahan waan kala maqnayn, waana kala baadiyownay. soo noqod wanaagsan, welcome back guys. asxaabtayda wuxuuna janaalka waxaa leeyahay share and like. waxaan ahayn inagama dhexeeyaan daani idinka. wixii update ahna Canada la socodsiin doonaa. waxaa idin rajeynayaa nolol barwaaqo ah iyo caafimaad, in Ilaahay cudurka naga wada badbaadiyo, aniga ayaa intii muslim ah gaalka xataa la ka badbaadiyo. salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.